ummadan dhan adduunka joogto gaalkooda iyo muslimkooda iyo munaafiqooda iyo kooda wanaagsan ma isku qalbiya mise waa kala duwan yihiin? hadday kala duwan yihiin meeqay u qaybsamaan? calaamadaha lagu kala gartane waa maxay? alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. walaalayaal joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. walaalayaal, xalaqooyinkii la soo dhaafay waxaan ka soo sheekaynay qalbiga iyo ahamiyadiisa. qalbiga maxaa xanuun u keeno? qalbiga calaamadaha lagu garto inuu xanuunsan yahay waa maxay? daawooyinka lagu daaweeyana maxay tahay? maantana insha allah tacaala waxaan ka hadlaynaa quluubta meeqay u qaybsantaa, sideena lagu kala gartaa. walaalayaal, say culummada noo sheegeen, quluubta waxay u kala qaybsantaa 3. tan koobaad, alqalbi asaliim. qalbi saliimka muxuu yahay? calaamadaha lagu gartane maxay yihiin? qofka qalbi saliim haystane halkee u dambayn doonta? kan labaad waa alqalbi almayit. qalbi almayit muxuu yahay? qalbiga dhintay. maxaa lagu gartaa? qofka qalbigiisa mayit yahayna halkee u dambayn doonto? tan saddexaad waa alqalbi almariid. qalbiga xanuunsan. alqalbi almariid maxaa la dhahaa? maxaa lagu gartaa? qofka qalbigiisa mariidka yahayne halkee u dambayn doonto? waxaan ku bilaabaynaa alqalbi asaliim. qalbi saliim maxaa laga wadaa? calaamadaha lagu gartane maxay yihiin? qofka qalbi saliim iska leh ama qalbi saliim wato ama qalbigiisa saliim yahayne halkee u dambayn doonto? alimaam ibn qayim raximahullahu tacaala ayaa inoo sheegi doona qalbi saliim wuxuu yahay ee aan si fiican u dhagaysan. imaamka wuxuu yidhi qalbi saliimka waa qalb maxshuwun biliimaan. iimaan ka buux. intaa keliya ma ahana, istanaara binuuri liimaan. qalbiga wuxuuba ku nuursanaa nuurkii iimaanka. wanqashacat canhu xujubu shahawaat. shahawaadkan dadka wareerisay dhanbo qalbigiisa waa laga qaaday. wa aqlacat canhu tilka adulumaat. dulmigan, kufriga, dulmiga, mugdiyada, xumaanta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka ilaaliyo. wuxuu ku mathalay imaamka cirka ka samaa uu yihi, cirkoo kale oo lagu ilaaliyo nujuumta, xidigaha lagu ilaaliyo. shaytaan hadduu rabo inuu u dhowaado xidigaa lagu soo tuuraa, wuu gubanaa. qalbi saliimkane ilaahay subxaanahu wa tacaala saas ayuu u ilaaliyey. marka waa qalb istaqaama calaa amri illaah. amarka ilaahay raacay oo qaatay. waqtadaa binnabiy, bisunnati nabiy sala allahu alayh wasalam. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam sunnadiisane ku daydayoo raacay. haddaba calaamooyinka lagu garto maxay yihiin? calaamada koobaad waa qalb mutma'in. qalbi degan, xasiloon. lianna ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu nagu yidhi, alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub. ninkaana qalbigiisa waxaa ka buuxo dikri. taas waaye mar kasta waxa uu arkay qof degan oo haybe ka muuqato. calaamada labaad waa muniib. mar kasto ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu noqonay, ay raajicun ilaa rabbihi waaye. dembi hadduu galay immediately ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu u noqon. intaa keliya ma ahani, waa raajicun mimaa yakrahu allah ilaa maa yardaahu allah. wuxuu ka noqonaa, mar kasta ka noqona wuxuu ilaahay nacban yahay, wuxuuna aadaa wuxuu ilaahay jecel yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, man khashiya araxmaana bilghayb wajaa'a biqalbin muniib. tan saddexaad, qalbigiisa waxaa lagu gartaa mar kastana ilaahay wuu ka baqaa, ilaahayna wuu tala saartaa wax walba uu samaynayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala asigoo qalbigaas ka hadlaya wuxuu yidhi, inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun. calaamada afaraad waaba qalbiga wax loogu magac daray qalbi saliim waaye. qalb dhibka dhan, xumaanta dhan, xanta dhan, cuqda dhan, xumaan dhan saliimuu ka yahay, nadiifuu ka yahay. asigoo saasuu aakharo ilaahay u imaana
الله سبحانه وتعالى وحو إلا من أتى الله بقلب سليم. على مدى شناد وقلب لين وقلب جلعيه دتك قلبي أضغو قرآن كستلو أقري وح كستلو شيء قلبي أذق معها قف كان وقلب جلعيه إلهي سبحانه وتعالى أسيقو كهد لا يوحي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. على مدى اللحاد لغو قرت قفك قلبي سليم يا وحاوى رحيم رؤوف وقفنا حريص بضن. إلهي سبحانه وتعالى وحوله ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. على مدى تضوات لوقرت قفكاس مرول بقلب جيسى وخاشع لله. إلهي سبحانه وتعالى وحوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. على مدى سيديات لو قرت وحا وقلبي مركز سكينة رحمة دقنان أي مركز كموقته. إلهي سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. على مدى السجارات لو قرت وحا قوي قف حوق بدن مركان لنا خاشع ورحمة بدنيا ونحريس بدنيا هي وحاواي مركو أدومن كلا دقمي لكن مركو عدو لكل مايو أما شيطان لكل مايو أما ظالم لكل مايو وقوي قف قلب حوق بدن واي. يعني إلهي سبحانه وتعالى أي قلب جيسة أتكينايو سوسن أفكرين أما شيطان أوسن أراعين. إلهي سبحانه وتعالى وحوي وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. على مدى طبناض لو قرت وحا وقلب مخبت خاضع ذليل لكن إلى ربه. إلهي سبحانه وتعالى وحول وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أقدم بيتي ورالي الله سبحانه وتعالى وحوي دي سنين إنو نقدقو دتك أمانتك شاكين وقلبي قوذ ليلة قلب السليم أصحاب القلوب السليمة إنو إلهي سبحانه وتعالى نقدقو دتك قلوب السليمة انتو قدم بيا نهاية ذو جنة إن شاء الله تعالى. حدبو دتك قلبي قوذ انتي قلب الميت إيوه قلب المريض محيهين هالكينو قدام بين دونان وإنو حلقة صوصعة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ولا لهنا كلا أسو قد بيا وإنو حلقة صوصعة إيوه قلبي قد انتي محوية هاي محال وقرتا صاحبكي سنة هالكي قدام بيسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.